بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قيبتنا وقيبت اللباد أن كل فقريني وكفلا قينيني كنا سوفاقيني حقيقة كمبانيغا توغدا ee lagu magacaabo one coin one life waxaan hore soo sheegnay inuu kambanigan cidii asaastay baan soo sheegnay iyo magacyada kala duwan uu leeyahay iyo waxa uu qabto waxyaalaha xaqiiqda ah uu ka shaqeeyo waxa ay tahay iyo inuusan lahayn wax products ama se badeeca wax service oo bixiyana aysan jirin wax ganacsi oo ku jiran aysan jirin taas waan soo sheegnay qodobada hore ku soo marnay insha Allah ta'ala waa taariikhdu tahay 15 bishii August 2019 waxaan falaqayn doonaa insha Allah qaybo kala duwan ee aan ku faa'iidi doonaa xaqiiqda kambanigan tuugada ah ee burcada ah ee Soomaali far badan cayrteeyay ilaa iyo haddana daba socda Soomaalida ee doonaya inuusan waxba uga tagin waxaan ka hadli doonaa laba ama saddex shay midkood waxaan ka hadli doonaa kambanigan dhowr shay oo dadka ku soo jiitay dadkuna markaas ay run u maleeyeen sida daraadeedna ay lacag ugu darsadeen dhowrka shay waxa weeye number 1 waxay dadka ku yiraahdeen waxaan haynaa oo aan samaysanay lacag la yiraahdo cryptocurrency oo waxaan leenahay one coin ku waa lacag crypto ah sida daraadeed waan ku siinaynaa marka baakajada naga gadatid waxbarasho waan ku siinaynaa koon qaali ah weeye ama waa lacag qaali ah hadda mustaqbalkana markaan suuqa nimaano wax badan bay ku goy doontaa saasaad millionaire ku noqon doontaa taa waa mid waxay kula dadku soo jiitaan inay yiraahdaan waxaan leenahay suuq lagu magacaabo deal shaker waa arki doona isagana wuxuu yahay waxay leeyihiin suuqaas ayaad koonka aan ku siinay ama lacagta kriptada aan ku siinay ayaad uga adeegan karaysaa adoo ku gadan doona wax alaalo waxaad doontid adoo ku gadan kara guri adoo ku gadan kara gawaari adoo ku gadan kara beero adoo ku gadan kara telefoon wax alaalo waxa rabtid waa sida ay sheegeen deal shaker muxuu yahay wax ma lagu gadan karaa ma xaqiiqi baa waan arki doona waxay kula dadka ku soo jiiteen inay yiraahdeen koonka aan haysano kriptada aan samaysanay one coinka lagu magacaabo suuqyada waaweyn adduunka ee lacagaha kriptooyinka lagu kala sarifo ayaan keeni doonaa imaan doonaa macnaheedu public baan imaan doonaa oo banaanka u soo bixi doonaa suuqeena markaan saa u nimaano suuqana koonkeenu wuxuu noqon doonaa koon qaali ah sadradeed baad millionaire ku noqonaysaa saddexda qodob ay dadku soo jiitaan waana saddexda qodob ee kalifa dadku inay lacag far badan ku darsadaan intay waxooda run moodaan waxaan ka hadlaynaa marka insha Allah saddexda qodob awalan intaana u gudban saddexdooda bal waxaan wax yar dul istaagaynaa horta maxay tahay cryptocurrency maxay tahay cryptocurrency waa lacag cusub oo hadda adduunka ku cusub kii ugu horeeyay la sameeyo la soo daabacay 2008 markii adduunka ka dhacday dhaqaale xumo weyn oo recession ah ay adduunka soo food saartay ayaa lacagta ugu horeysay ee cryptocurrency la sameeyay waxaana sameeyay nin lagu magacaabo Satoshi Nakamoto ninna waa la yiraahdaa jamaaca iyo kooxna way ahaayeen waa la yiraahdaa ilaa hadda lama yaqaan waana ninka sameeyay lacagta caanka ah ee hadda adduunka caanka ah cryptocurrency-ga ee bitcoin ka la yiraahdo ee hadda caawa in la hadlayo ee halkii bitcoin uu marayo $10,000 wax ka badan lacagtaas ayaa cryptocurrency la yiraahdaa waa lacag internetka dhexdiisa ka shaqeysa oo la taaban karin oo warqad ahayn oo qofku uusan warqad ahaan oo la soo bixi karin ama coin aan ahayn oo quruux ahayn qadaadiic ahayn laakiin internetka kaliya uu lagu kala ganacsado ee lehna suuqyo waaweyn oo tirada ka batay ee lagu kala bedesho oo lagu kala ganacsado leh ayaga iyo doolarka waa la isku sarifaa lacagaha kriptooyinka ayaga dhexdoodana waa la isku sarifaa marka lacagahaas way far badan yihiin ilaa 2,200 oo lacagood oo kala duwan weeye magacyo kala duwan bay leeyihiin bitcoin-ka ugu horeeya bitcoin ethereum EOS, Litecoin, Cardano, Stellar, Luminous, Ripple يعني way far badan yihiin ilaa 2,200 oo lacag oo kala duwan oo cryptocurrency ah ayaa hadda adduunka ka jirta cryptocurrency marka waa saas waa lacagta internet ku shaqeysa qiimaheeduna kala duwan yahay suuqyo kala duwan oo far badan bay taalaa waana wax open oo qofkii doona ka ganacsan karo Soomaali far badan baan ka ganacsata waana wax jira oo real ah oo xaqiiq ah oo aan ahayn wax been iyo mal awaala aan ahayn cryptocurrency marka waa saas waxay ku salaysan tahay waa wax ku salaysan technology computerized ah programming codes baa lagu dhisay coded programming ayaa lagu dhisay lacagta iyada ah lacagtaas waxay leedahay team of developers yani waxay leedahay dad sameeyay koox khubaro ah yani qof walba company walba oo lacagta soo sameystay tabcan wuxuu leeyahay koox khubaro ah oo technology-da blockchain-ka taqaana programmers ah oo programmada computer lagu sameeyay yaqaana lacagtaasna programka bay ku sameeyeen marka team bay leedahay marka lacagtu cryptada waxa lagu yaqaan inay leedahay blockchain wax la yiraahdo oo technology blockchain la yiraahdo waa inay leedahay koox ka dambaysa technology-daas oo iyadu markasta daba socoto oo hagaajinaysa oo soo dhistay waxa kale oo lacagta cryptocurrency leedahay wax la yiraahdo miners oo ah dadka lacagtaas gacmo isweydaarsigeeda markii la kala gadanayo iyo markii la isku dirayo dad macnaha la soconaya
oo computer usoo gatay waaweyn oo macnaha ay lacagtaas ay imaanayso meesha markii la kala gato meel dhex ay imaanayso mineriska imaanaysa ayaga markii validation ku sameynaya ayaga macnaha xaqiijinaya ayaga approvalka iyo go ahead iyo confirm siinaya oo istambaynaya kadibna block ku xiraya marka waxay leedahay lacagtu miners lacagta la cryptocurrency waxaan sheegnay in lacagta cryptocurrency ay leedahay blockchain iyo koox ka shaqeysa iyo miners oo ah kuwa gacmaysi wadaarsiga cryptocurrency-ga ayagu ka shaqeeya xaqiijiya cryptocurrency-gu waa lacag la isku gudbin karo oo qof kale u diri karo adduunka cryptocurrency marka taas la yiraahdaa waxaan ka wadaa dadka Soomaaliyeed inaan lagu khaldin OneCoin baa cryptocurrency ayaan rabaa inaan marka hore dadka fahansiyo cryptocurrency maxay tahay waxaan soo dhacaynaa soo daadagnaa marka OneCoin shirkaddan OneCoin One Life la baxday ee tuugada ah ee naagta Bulgaariyaanka sameysay Soomaalidana lacag fara badan ka dhacdo ka qaadatay waxa ay yiraahdeen waxaan leenahay lacag lagu magacaabo OneCoin oo cryptocurrency ah hadaba lacagtoodu su'aashu waxay tahay lacagtoodu cryptocurrency miyaa masama jawaabta dhabta ah waxa weeye oo xaqiiqda ah oo biyo kama dhibcaanka ah waa inaysan cryptocurrency ahayn sababahan soo socda daraadeed number 1 lacagtan ma laha blockchain macnaha blockyo la xirxiray oo la arkay oo dadkooda arki karaan oo dadku isweydaarsadeen oo la kala gatay oo marka xirmo block loo xiray ma laha oo teknolojiyada blockchain-ka aslan ma laha taas waa number 1 number 2 lacagta tani wax kood ma laha lama arki karo koodka ay ku sameeyaan lacagta programka ay ku sameeyaan dadka lacagaha cryptada soo sameeysta dhamaantood koodka ay ku sameeyaan waxay soo dhigaan website caan oo GitHub la yiraahdo ay soo dhigaan halkaas laga arkaa halkaas qofkii doona koodka ka daalan kara cid ilaa hadda nimankan koodka ay ku sameeyaan lacagtooda cryptocurrency ay sheegteen aragtay ma jirto mana ay laha number 3 tiimale adduunka xagee lagu arkay lacag la sameynayo oo cidii ka dambeysay soo sameysayna aysan jirin oo aan la haynin kasoo helimaysa company-ga OneCoin One Life si kasta hadaad u baartid cid kasta hadaad la hadashid kasoo helimaysid in ay leeyihiin team ama koox khubaro ah oo IT-da bartay kombiyuutarada bartay programmerka bartay oo OneCoin ka dambeeya oo soo sameeyay ayaguna ma sheegin meel ku qoran tahayna ma le meel ka arkiisana ma le marka taas waxay ku tusinaysaa inay ahayn lacagtooda cryptocurrency inay ka mid ahay team ma laha niri code ma laha niri blockchain ma laha waxaysan lahayn oo kale miners ma leh cid mine garaysa lacagtooda ama qodota sida lacagaha adduunka cryptocurrency oo dhan loo qoto oo dadku markii ay dadaalaan oo block ay xiraan miners loogu abaalmariyo lacag crypto ah ma ay laha soona heli mayso waxa inta kaaga sii daran lacagtoodu suuq weynayaasha adduunka ee tirada badan ee kumaankum bay gaarayaan suuqyada lagu kala sarfo lacagta cryptocurrency-ga hal suuq oo kamid ah ma taalo lacagtooda ilaahay baan ku dhaashay Soomaaliya dadka ay dhageysanayo ama ay daawanayo si fiican inta quyar inta isdajisaan bal fakira lacag aan suuq oolin see u gadanaysaan see laga gadaya oo laga dhaadhicinaya waa lacag cryptocurrency ah lacag suuq ay taala aysan jirin suuq ma taalo lacagtooda taas waa mid waxa kale oo jira lacagtooda mid la isku wareejin kara ma ahaba waxa kale oo jira lacagtoodu ma laha waxa la yiraahdo token matrix waa eray bixin caan ah ee laga yaqaano crypto dhexda laga yaqaan dad cryptooyinka ku shaqeysta dhexdooda yaqaanaan waxaana laga wadaa marka company ama shirkad ay soo samaysato lacag cryptocurrency ah lacagta way kala saartaa wayna qeexdaa sida ay loo kala leeyahay u qeexdaa waxay tiraahdaa 30% lacagta aan soo daabacnay horta waxay tiraahdaa lacagtaanu waxay sheegtaa maximum supply-ga wax la yiraahdo lacagta inta ugu badan la daabici karo bay sheegayaan oo computer lagu daabici karo sida bitcoin-ka 21 milyan ayaa maximum-kiisu yahay weligiisna ma dhaafi karo halkaas uu joogaa 22 milyan ka badan lama daabici karo saas lagu sadgareeyay programka lacagtoodu ma laha token matrix 120 bilyan oo coin baan leenahay bay afka sheegteen ha yeeshee cid xaqiijisay ma jirto sida loo kala leeyahayna ma saacadeenin dadka intay ka gadeen inta xabo ay dadka ka gadeen lacagtaas oo inay sheegaan token matrix ayaa waxa kamid ah inuu kamanigu sheego qaybta uu kamanigu la haray mesela waa inuu yiraahdo 30% kamaniga aska leh 70% konton boqolkiiba waxaan ka gadnaa dadka publica umadaha adduunka dhan ka gadaynaa 20% waxa iska leh dadka developerska teamka iska leh oo lacagtan sameeyay oo iyagu daba taagan oo mar walba blockchain-ka iyo teknolojiyada daba socda oo ku sameeynaya maaragtay dayactirka dadkaas iska leh wixii waa in marka la kala faarfaaraa oo la kala qaybiyaa oo lacagahan qaabka uu kala qaybsan dadka loo sheegaa taasna ma ay laha website-koodan ka soo arki maysid cid ku sheegi karta maanta ma jirto waxa cajiib ah marka waa intaan iloobin aan ku darayaa walaalaha Soomaaliyeed ee dhageysanaya ama maqlaya ama daawanaya waxaan u sheegayaa billahi calaykum blow firsad waxay sameeyaan qaab khiyaana waxay yiraahdaan markii wax yar joogaan ba dhowr sanad joogaan ba ama dhowr bilood joogaan ba waxbay ku daraa waxay ku leeyihiin lacagteeni OneCoin
waxay maraysaa maanta $20 haddana dhowr bilood kadib baa waxaa maqlaysaa waxay maraysaa $25 dhowr bilood kadib baa haddana waxaad arki doontaa ayagoo ku oranaya waxay maraysaa $30 bilaahi calaykum lacag aan cidna isdhaafsan oo aan cidna cid kale ka gadin lacag aan la kala gadanin oo la sarifanin oo suuq oolin oo demand iyo supply lahayn maxaa kordhiyay qiimaheeda kor qaaday mar walba kor usii socda ilaa hadda dhowrkii biloodba kor bay usii wadaan dadkii waxay ku yidhaahdaan koonkii waa kordhay lacagtiisu halkaas hadda maraysaa walgoodna hoos uma dhaco hoosna uma dego walgoodna khasaare ma sheegaan oo hoos ba u dhacay ma yidhaahdaan marka waad garan kartaa inay wuxuu yihiin wax feeg ah oo been ah oo maaweelo ah oo dadka lagu maaweelinayo lacagta cryptocurrency-ga ee suuqyada adduunka taalaay saa uma shaqayso waxay u shaqaysaa lacagtu way dhacdaa hoos bay u dhacdaa korna waa u kacdaa lacag meel taaganna ma jirto lacag kor kaliya u socotana ma jirto marka waa been iyo turufo iyo khiyaamo iyo ciyaar weeye iyo riwaayad weeye waa sheeko been ah wax ka jirana ma jiraan haddaba lacagtan ma aha cryptocurrency kana mid maaha intaas waxaan sii raacinayaa haddii aad tagtid meelaha cryptocurrency-yaasha lagu falanqeeyo golayaasha cryptocurrency-ga lagu falanqeeyo haddaad tagtid exchange-yaasha iyo suuqyada lagu kala bedesho lagu kala sarrifto haddaad tagtid community-yaasha faraha badan telegramada leh ee meelaha ku jiraan leh ee qaarkood 100,000 oo qof ku jiraan 200,000 oo qof ku jiraan 50,000 oo qof ku jiraan haddaad tagtid wax hadal haya OneCoin arki maysid haddii lasoo hadal qaadana markiiba waxay ku leebel gareeyaan waa ay yiraahdaan waa tuugadii waa scamkii google haddaa hadda google garaysid oo OneCoin one life ku qortid ama OneCoin kaliya ku qortid arki maysid cid ammaanaysa ma ahani cid ammaanaysa weliga allaha soo heli maysid sidoo kale youtube-ka haddaad ku qortid waxaad arki doontaa dad fara badan oo kuu kala dhigdhigi doona oo xaqiiqdeeda kuu sheegi doona oo maarata sheegi doona inay yihiin tuugo iyo pyramid scheme dad ku shaqaysta amase scammers sidaa daraadeed waxaa xagga nooga xaqiiqdooday baninkani inuu yahay company tuuga ah shaqana aan ku lahayn cryptocurrency ay sheegteen oo ay dhaheen koonkeena waa lacag cryptocurrency ah waan soo ogaanay wax allaale wixii cryptocurrency lagu yaqaano oo dhan inaan sahal xaba ka lahayn hal meel oo ay cryptocurrency ka shabahaan haba yaraatee ma jirto waxaa la oran karaa marka oo dadka ay xaqiijiyeen dadkii baareen ay xaqiijiyeen way kamid tahay dowladda Mareykanka oo hadda ninkii ugu weynaa ka xirtay oo xabsi ku dhigtay waxay xaqiijiyeen oo sheegeen inay waxay ku shaqeeyaan oo yahay database caadi ah database ama database unbay ku shaqeeyaan oo database-ka caadiga SQL server-ka la yiraahdo unbay ku shaqeeyaan meeshaas unbay nambarada ka badbedelaan oo dhahan koonkii maanta lacagtiisu halkaasay maraysaa waxaa intaasii raacin lahaa website-kooda haddaa gashid oo aad u fiirsatid meelaha qaarkood ay uga sheekeynayaan lacagtooda koonkooda iyo si loo mangareeyo ayaga laftigooda inay leeyihiin waxaan meesha ka muuqda maaha xaqiiqdii koonkayagii oo la maangareynaye waxaan waa wax iska mala awaalay bay leeyihin ayagaa kuu sheegaya dadka mar laakiin ma akhri dadka Soomaalidu waxba ma akhriyaan mana akhriyaan waxaas wixii afka looga sheego unbay qaataan halkaas aan u gudbinaa markii qaybtaas ah ku cadeynay inaysan ahayn cryptocurrency waxaa soo hartay qaybta labaad ee inay dadka u sheegaan koonkeenan lacagteenan cryptocurrency-ga ahi waxay imaan doontaa public oo micnaheedu yahay suuqyada waaweyn ayaa la keeni doonaa 5 sano ayay beentaa soo waday ugu yaraan 3 mar ayay dadka u sheegeen intay waqti qabsadeen oo date qabsadeen oo yiraahdeen waqtigaasaan suuqa imaanayna ayayse imaan oo saddexdooda been noqdeen tii ugu dambeysay waxay ahayd sanadkii lasoo dhaafay 2018 bishii October 8 sanad dhanbay dadku afuufayaan bisha October soo socota 8 2018 suuqa imaanayna public ba imaanayna qofkan lacagtan cryptada qofkan hadda sii gadanin wax badan qaadanin oo hadda sii xabsanin faqri buu ahaanaya qofkii xaabsado wax badan hadda sii gatase wuu dhargi doonaa October 8 2018 saas dadku akhrin jireen sanad dhan bay dadku akhrinayaan maxaa dhacay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qadaray markii la soo gaaray xilligii 2018 sanadkii la soo dhaafay October 8 markay maraysay inaysan wax isbedel la dhicin wixiina ay noqdeen been iyo huuhaa dadka lacagta loo guranayay kamarkan 5 sano jira 5taas sano lacag buu gurayay hal shay oo ka soo mira ay ka soo dhalaaleen hal shay oo ballan qaadeen oo ay keeneen ma jirto idan taasuna been bay noqotay public ba imaanna been bay noqotay bal waxaa dhacay 2018 sanadkii lasoo dhaafay October taas xilliga u dhaweyd markii ay been noqotay in suuqa yimaadeen ayaa waxaa dhacday in la arkay ayaga oo website-kooda ku soo qoray oo xaqiiq ah inay yiraahdeen ilaa ay dhowr toban waxay soo qoreen company oo shirkadood oo suuqyada lagu kala sarrifto cryptocurrency oo ay ka mid tahay Binance iyo Poloniex iyo Bittrex iyo KuCoin iyo OKX kuwaas intay soo qoreen oo list soo galiyeen ayaga waxay yiraahdeen kuwaasaan wada hadal noo socdaan koonkeena meeshaas laga heshiis gareyn doonaa koonkeena halkaas laga diiwaan gelin doonaa suuqyadaas waaweyn bay soo qoreen kadibna waa la waayay waxba ka soo naasacdaan waayeen wax ka xaqiiqoobina ma jiraan bal waxa la arkay markii dambe ayagoo koonkooda la hoos galay company shirkadda la yiraahdo Ethereum la hoos galay oo platform-kooda isticmaalaya
oo raba inay kusoo darmaan Ethereum ayaa la arkay kadibna markii la fahmay ayay ka carareen oo ka baxeen waa nimanka beenta ku shaqeysta iyo turfadaas dadkana 5 sano waqti dheeraysa fara badan soo sameynayay oo dadka hadba shay cusub ku maaweelinayay taas marka taasna halkaas uga baxaya